بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن شاء الله. رمضان كريم بشي رمضان أيانا بالعضي إن شاء الله عشرة هذه كتب أسبوعي هالمر أيانا نقدونتا إن شاء الله ما أنت وحن بلا بين بروجكت تجي ودم بي أرجيكت أنت نقول حجنا هرجينا عشرة أرجيكت آذو وبتي وحكينا أين وحكي لماها عشرة وحن سميناها وقتها إن يرينا سي ardaydeena uga caajizin sababtoo hal saac laba saacadood hadduu noqdo projectiga video aada lagu caajiza si saas u dhicin ayaan u yareeyay oo ilaa 20 daqiiqo ugu badnaan inaan ka dhigay marka insha Allah projectiga aan ku jirnana aadaan u dedeji doonaa insha Allah sala socosho waxan marka aadaan sala socono okay maanta insha Allah waxaan rabnaa qaababkii hore waxaan u shaqeynaa qaabab ka duwan si wax badan aan ugu faa'iidno oo kuwa hore wax badan ugu duwan. Okay maanta waxaan rabnaa inaan ka bilaabo masjidka rabaa project ee masjidkan ku balansaneen ugu horeyntii arjikadka waan soo furtay waxaan shaqo ka bilaabi doonaa unitka ayaan saxanaynaa oo meter ayaan ka dhiganaynaa decimaladana 2 ayaan ka dhiganayaa inta markaan sameeyo kadib waxaa leeyahay oo unitka ii saxan yahay sidoo kale storieska ayaan wax ka bedeli doonaa storieska waxaa leeyahay dhamaantooda 4 iga wada dhig kana 4 sidoo kale kana 4 okay inta kadib insha Allah waxaan sameyn doonaa G+3 ayaan ka dhigi doonaa si macnaha G+2 aan dhahay G+2 qaybta sare wuxuu noqonaa barbed ka caadi sida caadiga okay inta kadib okay noo dheh waxaan rabaa marka maanta sidii daqiiqo hore aan sameeyo kale waxaan soo geli doonaa wax la yiraahdo failkii aan ka raaci lahayn outcode ahaan aan u soo gashanayna waxaan leenahay fail kadibna external contact kadibna place external drawing inta kadib meeshu ii yaalan toos u tagay doonaa markaan u tagay kadib waxaan leeyahay open soo uu soo geliyo mid kale marka la soo gelinayo versionada isticmaalayso waa inuu islaada ana hadda versionka AutoCAD ka isticmaalay 16 oo ahaa ArchiCAD kana 19 caadi isku qaadanayaan mar 16 haduu ku yahay AutoCAD ArchiCAD-yada caadi u qaadana oo wixii 19 ka dambeeyay 6 xataa 18 uu qaadana iyo wixii ka dambeeyay ilaa 25 oo hadda jiro sidoo kale versionada dada waxaa badan ay soo weydiyo versionka 20 iyo 19 maxaa u doorbiday 19 wax badan u doorbiday ardaydana u daneeyay sababtoo ah ArchiCAD-ka wixii 19 ka sareeyo xagga tayadiisa aad u fiican tahay speed badanna u baahan yahay computerada dambe oo hadda imaaday oo generationada dambe oo dhan ana generationka wixii 8 ka dambeeyay ilaa generation 11 dhamaantooda CPU-gooda aad u low yahay sababtoo ah computerada loogu talagalay maba ahaba computerada dambe imaado dhan generationadaas CPU-ga 1.9 ilaa 2 ay badan u badan yihiin saas darteeda culays badan oo qofka dareemi doona hadaadan culays barashada horta mid inaad ku baratid aad u fiican wixii ka dambeeya laakiin waxa waay midii adiga ku fududaata raac taasi dhibaato ma laha intaas waxaan rajeynaa sharxaadaasna in aad loo fahmay haddii lacala aad isticmaalaysay 20 oo kale 16 ka waa isticmaali kartaa AutoCAD-ka 18 ama 17 oo kale waa isticmaali kartaa oo 20 iyo muxuu ahaa 21 oo kale 22 oo kale ilaa 25 ArchiCAD-ka marka soo sii badisid waxa waay wuxuu u baahnaa doonaa computer RAM-kiisana aad u fiican yahay RAM-ka dadka 4ka iyo ma aslanba ArchiCAD marka isticmaalayso 4ka ilaali waa inuu 8 iyo wax ka sareeyo 16 oo kale 2 oo kale 64 oo kale markasta RAM-ka inuu sii sareeyo sidoo kale computerska waxaa jira computer loogu talagalay caalamka aad loogu isticmaalo computeradaadana si fiican ina u hagaajisid ayaa rajeynaa okay inta kadib aan ugu socdo ashirka waxaan leenahay inta kadib place ayaa leedahay place-ka haduu ku shaqeynay means waxa waay labada version waa isqaateen markaas caada u wadan kartaa inta kadib waxaan leenahay meel banaan click isay kadib waxaan haraa nashqadi oo masjidka inta kadib waa lane-ka AutoCAD-ka sooma okay shaqo dhan waxa ka bilaawdana marka column-ka waxa sameynaa column-ka sida horaan maanta oo isticmaali jirnay waa ka bedeli doonaa waxaan isticmaalaa wax la yiraahdo grade system
grade system ayaan isticmaalaynaa. waxaa leenahay design sidoo kale grade system marka la isticmaalay waxa qasab ah waa inaa haysataa ballaynkaaga iyo qaabka columnska isku xirmay. aniga hadda hal mar hadii kan kansalo waxa leeyahay columnskayga waxa isku jiraan 5.9 iyo mid kasta isku jira. okay column ahaan waxa haystaa 4 column haystaa 4 iyo 4 minus 16 column haystaa. inta kadib waxa leeyahay design tag grade system inta markaas meesid ko horta inta shay aad u baahan tahay waa inaad jeeka soo saarto. tusaale kale element hadii aad u baahan tahay column aadhe ka fiican column hada u baahan tahay column ka jeeka saar inta kadib settingkiisa hagaaji. waxaa leenahay meesha waxaan dhahdaa no link iyo no dheeraan dhererkiisana 3 mitir 8 si 20 kane 20 kaas insha Allah waxa fadhiisan doono beam ka fadhiisan doono. okay inta kadib cabirkiisa waxa yiraahdaa 0.4 inuu noqdo. inta marka ugu soo gudbo column-ka center hadda haysta sidiisa ahaado wax colorka sidaas leh ofur colorkaas default-igu ahaa iyo ahaado saas waxa ugu baxay column-ki. waxaan ku xijinaa wax la yiraahdo beamka asiga jeega ii saaraysa sidaas oo kale. waxa la jeega waxa u baahan tahay jeega waxa la jooga guud aan haysta meeqa horta 4 mitir saaro. inta dhulku soo degi doon 0.4 oo dhahay adiga waa yareynsan kartaa hadaa baahan tahay. okay 0.4 ka isqaato macna 0.2 koro aadi doona 0.2 column-ku dhaxgali doona. okay sidaas ahaado. inta kadib balaciisa waxa leedahay waa beamkan wili ka hadla beamkaasina waxa leedahay balaca haraaco derbiga oo aan 0.4 dhigi doono 0.4 iga dhig marka. okay inta marka ugu soo baxo colorskiisa hadda wada fur kan default-iga ah leebisa ahaado. inta kadib okay hadda waxaan samaystay column soma dimension waa ku dari kartaa sidoo kale total dimension waa ku dari kartaa. aniga labadooduba hadda uma baahan saas darteeda okay alle labadaas bis ayid oo ka. inta kadib meesha ka qabanaysid waa kan anaada kan waxa iga sii muhiimsan qaybta ugu hooseyso ee ku qoran tahay grade position. inta kadib laba qayb haysta marka qayb horizontal iyo qayb vertical. horizontal iyo vertical ka waxaan sameynaa kulligood inaan tirtiro si aan u sameeyo. okay jijiif ahaan meeqa column haysta column marka la 0 ka soo bilaabay kadib waxa leeyahay 5.9 macnaha ani 4 xaba haysta sooma. okay kan kowaad 0 ka bilaabana macnaha. okay hal mar hadii kan dhinaca iska dhigo si aan inta ku tuso kan 0 uu noqona kan ila kan marka meeqa noqona 5 mitir 9 kan 5 mitir 9 kan 5 mitir macnaha 3 xabo oo 5 mitir 9 kan kowaadna 0 sidaas ka dhigaysa. ani marka hada hal xabaan sameeyay ma kan hal xabo 0 iyo 5.9 inta kadib mid labaad mid saddexaad. okay intaas ayuu ina qana. inta kadib qaybtan kala u gudbaadana qaybtan sidaas oo kale marka bixinaysa minuska isticmaalaysa marka mid cusub soo saaraysan waxa isticmaalaysa plus isticmaalaysa. inta kadib kan waxay dhahdaa 5.9 waa kii labaad. inta kadibna waxa leedahay mid kale okay intaas. inta kadib okay leeyahay meesha aan ka qaba laha. inta kadib waxa leeyahay centerka kan iga qabo. okay centerka iga qabo kadibna inta la igu toos. okay waa ka. inta kadib columnska ku wada fadhiisteen hadda ay wada fadhiisteen hal qodob u baahanahay. marka qodobka u baahantahay maxay tahay waxa u baahanahay columnka centeriska inaan wax ka bedelo. ugu horeyntii ayaga wada dooro kadib bedel waa rectangle waxa ka dhige circle iga dhig marka. okay intaas kadib ma arki karaa 3D marka. okay fit leh soo ku horimaado waa ka waxaan haystaa orbit qaado jawaka columnskayga iyo beamkayga waa ii fadhiya jaa darbi qaado dhameystir waa inta waa selfana rajana. okay oo kuwa dhexe ayaga kuwan rectangle hadii kuwa dhexena circle waa mujida. okay I think waxaan rajeynaa in intaas sala fahanay. inta kadib waxaan rabaa qaybta sare marka u gudbinaysid asile koobiyeen qaybta sare kiisanaysa. marka ani hadda waxaan rabaa inaan sameeyo darbiga inaan raacsado si shaqada igu fududaato. okay waxa leeyahay darbi waa haysta setting keyboard waxa leeyahay meesha no link sidoo kale qaybtan dooro si thicknesska
derbigaaga kugu noqdo 0.4 joog waa haysataa okay intaas kadib okay idee marka inta markaa haysto kadib waxaa leeyahay derbi aan u baahanahay okay derbiga qaybta sare horta samey geeskaas kala geysay okay rectangle u baahanahay okay geeskaas iga soo bilaab ilaa geeskan iga okay rectangle kaas aan haystaa inta kadib waxaa leeyahay ibadal oo leen igu soo celi inta kadibna geeskaas ka soo qabo oo ila raac marka okay geeskaas waan haystaa kana geeskan iga okay intaas waan hayaa inta kadib waxaa leedahay kuwana geeskooda u baahanaa marka waxaa leeyahay kan geeskaas ka soo qabo okay meesha qabanaysid si fiican iskaga fiiri waxaa leeyahay geeskan hoose okay ilaa geeskan ikan kadibna qaybtaan igu dhamay okay intaa kadib intaan dhexe boqontuuyaa la naqanayaan waxaa leedahay hal mar inta igu noqo kadib meeshaan waxaa dhahdaa 0.2 ka dhig intaa kadib okayda iyo wada geli marka leeyahay kan leenkan markaa wax sameynaysid waxaa aad u fiican qofka inuu dedejiyo waxaa sameynaysidna si fiican ugu fiirsatid si ay shaqada mar kale kugu soo naqan hadii kale waxaa waaye shaqada maanta oo dhan samaysay ayaa iska agjoonay okay waxaa leeyahay marka kan ira okay kan ira okay ilaa waa ka mixraabka asina waan samaystay okay inta kadib hadana waxaa dhahdaa derbiga 0.4 kii soo celi si macnaha qaybtaan u sameey leenta yifur igneski 0.2 aan ka dhigtay 0.4 igu soo celi inta kadib geeskaas ka soo qabo ilaa inta ikan dib ii soo celi ilaa geeskan ilaa kan okay waa kan inta waxaa rajeynaa in fahmay 3D aan dhaho waa kan okay waa kan waxaa rajeynaa in aantaas aad loo fahmay horta leemiskan iga bixi هذا لامس كان إدارة كده بدليتس كده أوكي واقع أنت مركا إصلاح هاينو محاربة إنان أوضح بحو إن دربي إنان دمسترو أوكي okay derbiyadan geesaha oo isqaadka xaggiisa wada doorana si dhererka aan u yareeyo dhererka meeshay kuwan 4 mitir kiin ay 3 mitir iga dhig inta kadib waa ka dherer ahaan dadkan kale way ka gaaban yihiin inta kadib waxaan u baahanahay janjarti marka u baahanahay janjarti haleeya janjar sidana u shape ayaan u baahanahay haleeya marka stair kiifur kadib u shape waa kana tan dhabarka ii maray marka okay inta kadib haleeyahay dhulka intee ka soo kacayso horto 0 ka dhig jooga gurigana 4 mitir cabiradan kale cabiraha haysana si fiican u fiiri doonaa qaybta ina imaada horta leftiga qaada leeyahay kadib intaas oo kadib okay cabirka haysta hal mar iyo ogow imtaabo ama meeshasba meeshareed ka soo qaado inta 4 mitir iyo 40 intana 4 mitir okay cabir sidaasaan qaadanayna mar inta kadib waxaa leeyahay geeskan ba kale ku sii
okay meel khaldan ku dhacay mar waxaan dhahdaa kan igu noqo horta doorashada kan dheh intaa kadib balaca okay kan waxaan dhahdaa 4 mitir kan waxaan dhahdaa 4.4 okay waa ka maya kan waxaan dhahdaa 4 ka dhig kaasa waxaa i raacinaysaa 4.4 okay intaa kadib geeskan isaar marka okay waa ka intaa kadib 3D da jarsiida wataa marka okay meel khaldana mid kale ku dhuftay orbit ka qaado saan u wareejisid waa ka marka I think waxaan rajeynaa in intaas la fahmay intaa kadib meeshas markaan marayno oo intaa aan dhammayno waxaa ii raacaysaa okay intaas aynoo joogo albaabada gaaraan ka dhigana kadib haddana daaqadaha islaabka kadibna insha allah sidaas u wadi doonaa cashirkeen maanta intaas aynoo joogo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu